laba maalmood oo isku xigta qofka sooma waxa uu wadaysta qaybaha difaaca ee caawiya neerfayaasha halka hoos u dhac weyni ku dhaco qandhada iyo kor u kaca dhiigga ee aan caadiga ahayn. cilmi baadhis caafimaad oo ay dhowaan sameeyeen khubaro reer galbeed ah oo u kala dhashay Mareykanka iyo Talyaaniga ayaa shaaca ka qaaday faa'iidada caafimaad ee soonku u leeyahay aadamaha. waxaana daraasadan lagu soo bandhigay xanuunada soonku ka hortag u yahay iyo kuwa lagaga bogsado. sida lagu daabacay cadadkii ugu dambeeyay ee jariidada toddobaadlaha ah ee ka soo baxda dalka Faransiiska ee PAM Actual, waxay daraasadan wadajirka ay u sameeyeen khabiirada Mareykanka iyo Talyaanigu ka warrantay xanuunada soonku gaashaanka uga noqon kara aadamaha, kuwaas oo u badan xanuunada maskaxda ku dhaca ee saameynta ku yeesha unugyada difaaca ee dhiigga. xanuunadan ayaa waxaa ka mid ah ama ugu horreeya cudurka asaasiga ee afka qalaad loogu yeedho Alzheimer's iyo xanuunka dhinaca qalalka ee Parkinson's disease. sida cilmi baadhistan lagu ogaaday, laba maalmood oo isku xigta qofka sooma waxa uu wadaysta qaybaha difaaca ee caawiya neerfayaasha halka hoos u dhac weyni ku dhaco qandhada iyo kor u kaca dhiigga ee aan caadiga ahayn. daraasadan caafimaad ayaa sidoo kale iftiimisay soonka 10 maalmood oo isxiga qofku sooma inay ka yarayso xanuunada lafaha ku dhaca ee rheumatismka loo yaqaan, kaas oo inta badan ku dhaca dadka waaweyn. khabiiradan ayaa la dhaygagay faa'iidooyinka caafimaad ee tirada badan ee soonka ku jira, kuwaas oo taabanaya dhinac kasta oo nolosha aadamaha khusaysa, heerka waxtarkiisu gaarsiisan yahayna aan la qiyaasi karin. xeeldheerayaashan ayaa la amakaagay heerka aadka u sarreeya ee difaaca jidhku kor ugu kaco marka uu qofku sooman yahay. waxa kale oo qaadan waa ku noqotay xaddiga kororka unugyada cadcad iyo kuwa cascas ee difaaca jidhka oo gaadha heerka ugu sarreysa ee kororkoodu gaadhi karo. ugu dambeyntii, cilmi baadhistan ay wadajirka u sameeyeen khabiirada Mareykanka iyo Talyaanigu waxay dhiirigelinaysaa in qofku bishiiba hal maalin ka soomo, taas oo ay tilmaamtay in bishii oo maalin laga soomaa inay 40% yarayso xanuunka macaanka, haddii laga sii badiyana kor u kacayso qiyaastaasi, taasoo ka dhigan in haddii sanadkii hal bil la soomo in qofku ka gaashaaman karo xanuuno badan oo haleeli lahaa, halka kuwo kaloo hayaano hoos u dhacayaan. qormadan waxaan ka soo xiganay website-ka Somaliland Post, kaas oo uu ku qoray Faysal Maxamed Xasan. ka hor inta aanan ka bixin, fadlan haddii aad ka heshay ha moogaanin inaad subscribe tiraadid kanaalka Farshaxan si aad ula socotid muuqaalada aanu soo bandhigno.